laanta af Soomaaliga ee BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-da magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idin lahaantiinba meel walba aad inaga maqlaysaan waa Jimco 22 bisha 8 saacada Afrikada Bari waa 7 aroornimo barnaamijka subaxnimo qodobada aan idinkugu heynana waxaa kamid ah shirkii Dhuusamareeb 3 oo heshiis laga gaaray iyadoo maamulada Puntland iyo Jubbaland ay ka maqan yihiin haddaba maxay ka dhigan tahay qaab doorashada lagu heshiiyay marka waxay ka dhigan tahay isu tanaasul iyo isu soo dhawaansho iyo runtii wixii suuragal ah oo dalkan doorasho oo ugu dareeri karo in la hirgeliyo oo la fuliyo ay ka dhigan tahay Puntland oo ka hadashay burcada la sheegay in ay afduubteen markab maalmo taagnaa xeebaha maamulkaas weerar xalay lagu qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada dawladda oo ku yaala magaalada Baardheere waxa kale oo aad maqli doontaan waxyaalaha ma garanaysa cudurkani faafistiis yareynayo qofkan naafadib baa u leedahay ilaa social distance baldi laakiin qofkan qof la caawinayo markastaba qaar markas waa la xbaara waa sida uu saameeyay cudurka corona dadka baahiyaha gaarka qaba barnaamijka ayaan idinkugu haynaa iyo dabcan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha barnaamijka waxaa soo saaray Bashiir Maxamed Caata anigoo Furtun Ismaaciil Axmed ayaa idinla socodsiinaya subax wanaagsan dhageystayaal marka hore saynu ku bilowno wararka caalamka ee BBC-da Axmed Badar ayaa u diyaara Joe Biden ayaa waxaa lagu wadaa inuu jeediyo khudbadiisii ugu weyneed oo uu jeediyo 50 sano ee siyaasadda uu ku jiray khudbadiisii ugu weyneed ee uu jeediyo 50 sano ee siyaasadda Mareykanka uu ku jiray khudbadda ayaa ah mid uu ku aqbalayo xuladiisa loo soo xulay inuu noqdo musharax xisbiga dimuqraadiga waxayna doorashada bisha November food isdari doonaan madaxweynaha xilka haya Donald Trump markii horeysa madaxweyne Trump ayaa khudbadda uu ka jeediyay Pennsylvania waxa uu sheegay ama weerar afka ku qaaday Mr. Trump isagoo oo sheegay in uu nusqarnigi waxa uu markaasi ku qaaday weerar dhanka afka Biden isagoo oo sheegay in nusqarnigi siyaasadda uu ku jiray uu guul daraystay diyaaradaha nooca loo isticmaalo xaaladaha degdeg ee caafimaadka oo laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa lagu wadaa in ay u duusho dalka Ruushka si halkaasi uga soo qaado hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexander Navalny oo si aad u xanuunsanaya taageerayaashiisa ayaa waxay sheegeen in la sumeeyay hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay sheegtay in dalkeeda uu diyaar u yahay in uu siiyo caawin kasta oo laga maarmaan ah si markaasi loo badbaadiyo noloshiisa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu ku eedeeyay dalalka Yurub in ay la sabteen hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Khomeini hadalkiisa ayaa ka dambeeyay kadib markii dalalka Britain Faransiiska iyo Jarmalka ay sheegeen inaysan taageeri doonin dadaalka Mareykanka ugu jiro sidii cunaqabateyn dib loogu soo rogi lahaa dalkaasi Iran Mr. Pompeo ayaa ugu dambeyntii bilaabay geedi socodka cunaqabateynta qaramada midoobay lagu soo rogayo dalkaasi Iran saraakiisha hogaaminaysa afgambigii ka dhacay dalka Mali ayaa waxay sheegeen in maanta oo Jimcaha dib loo furi doono xuduudada cirka iyo dhulka ee dalkaasi hogaamiyaasha afgambiga ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in ay xiriir la sameeyeen kooxaha mucaaradka ayna ka wada hadlayaan sidii loo bilaabi lahaa geedi socodka magacaabidda madaxweyne kumeel gaara wadamada galbeedka Afrikana waxay ku baaqayaan sida ugu dhaqsiyaha badan xukunka dib loogu celiyo madaxweyne Ibrahim Keita ugu dambeynna diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa waxay duqeyna dhowr la bartilmaameedsadeen magaalada Gaza kadib markii gantaalo laga soo riday dhanka Falastiiniyiinta militariga Israa'iil waxay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen goobo militari oo ay leeyihiin kooxda Hamas warkii dunidana waa naga inta Furtun aad buu mahadsan yahay Axmed Badar ayuu kaasi ahaa wararka caalamka ee BBC-da inala socodsiinaya haatan dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha inooga harsan barnaamijka aynu ku bilownay waxa xalay xilli dambe magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyay shirkii madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar kamid ah dawladaha xubnaha ka ah iyadoo xalay lagu gaaray heshiis ay ku saxiixan yihiin madaxweynaha dawladda federaalka gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynayaasha maamulada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayna ka maqan yihiin maamulada Jubbaland iyo Puntland oo aan heshiiska qayb ka ahayn qodobada lagu heshiiyay waxa iga waramay Bashiir Maxamed Caato
fartuun shirkii dhuusamareeb ee qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir oo maalmahanba ka socday magaalada dhuusamareeb balse aanay ka qaybgelin madaxda puntland iyo jubbaland xalay ayaa sidaas sheegtaba lasoo gabagabeeyey waxaana ka soo baxay qodobo markoodii horeba ay kasoo shaqeeyeen guddi farsamo oo ay iska xuleen qaar ka mid a dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo gobolka banaadir inkastoo guddigii farsamo ee matali lahaa puntland iyo jubbaland aanay ka qaybgelin kulamadaasi murmurteedkii xalay ka soo baxay waxaa lagu sheegay in madaxda qaranka ay si qoto dheer oo taxadir ku jira wadatashi uga yeesheen qaabkii doorasho ay guddiga usoo gudbiyeen waxaana ugu dambeyntii baa layidhi ay isku waafaqeen qodobada soo socda 1 in qaabka doorashada 2020 iyo 2021 ay noqoto mid deegaan doorasho ah 2 in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka uu kaashanaya maamul goboleedyada ay fududeeyaan dhisidda guddi xulis ah oo loo dhan yahay oo ka kala imaanaya odayaasha iyo bulshada rayidka ee ka soo jeeda beesha wadaagta kursiga 3 in ergada kursi kasta ay noqoto 301 oo ka imaanaysa beesha kursiga wadaagta 4 in dowlad goboleed walba laga asteeyo ugu yaraan 4 deegaan doorasho oo ay ka dhacdo doorashadu 5 in codbixiyaasha 3 ilaa 5 kursi iyo hal goob doorasho wada yaala la isku dhafo kadibna wadajir ay ugu codeeyaan dhammaan murashaxiinta xisbiyada ay ku tartamaya kuraastaasi 6 in doorashadu ay ka wada dhacdo dalka oo dhan hal maalin oo isku mid ah 7 guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxay kuraasta lagu asteeyey deegaan doorasho aan amni ahayn u wareejin karaan baa layidhi deegaan doorasho kale oo amni ah 8 in kuraasta xildhibaanada somalilan lagu doorto qaab doorasho dadban dabcan waa sidii hore 9 in qorshaynta iyo fulinta doorashada looga dambeeyay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyagoo kaashanaya baa layidhi maamul goboleedyada iyo bulshada rayidka 10 in doorashada lagu galo hanaanka xisbiyada badan 11 in baarlamaanka dowlad goboleedyada ay soo doortaan xildhibaanada aqalka sare 12 in heshiiskan loo gudbin doono golaha shacabka si uu sharci noqdo 13 si doorashada waqtigeeda ugu dhacdo waxaa la go'aamiyey in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka uu dardargeliyo hirgelinta doorashada 14 madaxda shirka waxaa ka go'an baa layidhi inay sii wadaan dadaalka xal u helidda tabashooyinka ku aadan arrimaha doorashooyinka 2020 ee ay qabaan baa layidhi laba dowlad goboleed oo aan shirka ka qaybgalin baa layidhi kuwaasi oo kale ah puntland iyo jubbaland 15 in la ilaaliyo 30% saamiga haweenka ee kuraasta labada aqal ee baarlamaanka qodobadaas ayaa marka ka soo baxay shirkii dhuusamareeb waxaana muuqata in meesha ay ka baxday doorasho qof iyo cod ah oo muddooyinkii dambeba lagu haminayay in Soomaaliya ka dhacdo sidoo kale fartuun doorashadan waxaa go'aan laga gaaray iyadoo aanay shirka dhuusamareeb fadhinin maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland wuu mahadsan yahay Bashiir ayuu kaasi ahaa oo qodobadii shirka ka soo baxaya inoo dulmarayay haddaba si aan wax badan uga ogaano heshiiskan ay dhinacyadan gaareen iyo waxa laga filan karo maamulada maqnaaba waxaan ka wareysanay Dr. Jibriil Cali oo aadan oo amuuraha Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka qadka telefoonka ayuuna iigu waramay xilligii doorashada waa la joogaa oo dalku waxay ahayd in bisha December oo sanadka u dambeysay oo baarlamaan mid ka haatan joogaa bedelo uu fadhiyo mana muuqdo saansaan in sidaa la gaari doona ah marka waxaa loo baahday maadaama waqtigii uu ciriiri yahay in heshiis siyaasadeed la gaaro taasaa keentay in dhuusamareeb lagu shiro oo laga wada hadlo qaabkii dalka doorasho loo gaarsiin lahaa taasaa keentay in sharcigii doorashada oo baarlamaanka labadiisa aqal ay meel mariyeen madaxweynihiina uu saxiixay intaa dib loo eego gobolladii oo meelihii ay ka dhici lahaayeen doorashooyinka lala heshiiyo marka waxay ka dhigan tahay isu tanaasul iyo isu soo dhowaansho iyo runtii wixii suuragal ah oo dalkan doorasho oo ugu dareeri karo in la hirgeliyo oo la fuliyo ay ka dhigan tahay marka sidee la isu waafajinayaa sharciyadii uu baarlamaanka meelmariyey ee doorasho qof iyo cod ah iyo heshiiskan ee dhuusamareeb lagu gaaray dalka duruufo waxaa ka jira aan haatan saamaxayn in doorasho qof iyo cod ah ay dhacdo oo dalkao dhan ka dhacdo marka waxaa la sameeyey sida ugu dhow oo 2016kiina looga gudbi karo iyo 50kii qof iyo gobolada halkii meel ahaa waxaa doorashadii loo daadejiyey degmooyinka waxaa la tirada loo badiyey dadkii xildhibaanka soo dooranayay marka runtii waa arrin kasii xalaalsan doorashadii hore lasoo dhaafay laakiin ma gaarsiisna qof iyo cod dabcan heshiiska la gaaray wuxuu muujinayaa in laga soka maray qof iyo cod lagana shisha maray oo laga wanaajiyey sidii hore oo ay ahaan jirtay marka waxaa ku qoran heshiiska in sharci laga dhigi doono oo baarlamaanka la horgeyn doono oo ay ka doodi doonaan markaasuu sharci noqon doonaa oo doorashada sharciga lagu geliyay markaasuu ka noqon doonaa
maamulada Puntland iyo Jubbaland shirka qayb kama aanay ahayn go'aankana waxaa la gaaray iyagoo aan miiska fadhin in ay aqbalaan heshiiskan suurtagalnimadeeda bal ka waran. wararka soo gaaray waxay sheegayaan inay labada maamulba dhex ku soo jireen oo diyaar u ahaayeen haatan inay yimaadaan. nidaamka la qaatay ee doorashada waa kii ay iyagu doonayeen ee ahayd doorasho dadban, laakiin waxay diidaan haatan meesha ma yaalaan sidii ay iyagu rabeen ayay wax u dhamaadeen. tusaale ahaan waxaa la yiri xildhibaanada aqalka sare waxaa soo dooran doona baarlamaanka maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo Somaliland waxaanu ognahay in aanu lahayn baarlamaan. marka iyagoo kale maxaa laga yeelayaa? Somaliland arinteedu way ku caddahay heshiiska waxaa ku qoran in doorasho dadban oo Muqdisho ka dhacdo lagu soo xuli doono xildhibaanada labada aqal ee Somaliland ka soo jeeda. dhanka Banaadir sidoo kale weeyaan oo doorasho dadban ama haddii la suura gelin karo in doorasho ka wanaagsan la sameeyo waa arrin si gaar ah in looga hadlo u baahan 13 aqalka sare xubnaha ka ah ee gobolka Banaadir oo baarlamaanka u meel mariyay. marka dabcan wixii on lagu dhaqo Somaliland in lagu dhaqi doono u badan tahay gobolka Banaadir isagana. saacado ka hor inta aanu soo bixin heshiiska Dhuusamareeb Mareykanku waxa dadka qaar uu ku tilmaamay inay yihiin qaswadayaal ragaadinaya ka qaybgalka shirka ayna ku gorgortamayaan dimuqraadiyadda iyagoo eeganaya buuyiridamacooda gaarka ah. marka hadalka Mareykanka culays intee lag ayuu ku yeelan karaa maamuladii aan ka qaybgalin shirka? runtii horta hadalka Mareykanku wuxuu muujinayaa in Mareykanku uu fahamsan yahay arrinta Soomaalida ah oo dadka Soomaaliyeed ma aha dad maaragtay sidii la doono laga yeelo oo wax loo yeeriyo ma aha ama tabar yaraadeen ama awood lahaadeen. taas waxay keentay marka in Mareykanku uu la jaan qaado xaaladda haatan Soomaaliya ay taagan tahay. dadka uu la hadlayo haatan oo qaswadayaasha ku sheegayo haddaan magac dhabo madaxweyne Daniga Puntland iyo madaxweynaha Axmed Madoobe iyaga ayaan wixii sheegtay beesha caalamka ah inoo timaado wax kasta oo noqoto Mareykan iyo Ruush iyo Ingiriis iyo Talyaani iyo wadamada dariska ah intuba wax kaalin ah kuma laha inay ka hadlaan gudaha Soomaaliya iyo doorashooyinka iyo wada hadalka siyaasiga ah ee Soomaalida ka dhaxeeya haddii aanay Soomaalidu xabad isu qaadanin. kaasi waxa uu ahaa Dr. Jibriil Cali oo aadan oo khadka telefoonka igu waramayay. qaar ka mid ah dhageystayaasha ayaa qodobkaasi aragtidooda ka soo dhiibtay. Xamdan Muuse Saalax oo joogta Badhan waxa ay leedahay shirka lagu soo gabagabeeyay Dhuusamareeb ilama aha inuu noqonayo kii la filayay maadaama maamulada qaar ay maqan yihiin waxaana haboon in shir kale la isu balansado si arrimaha doorashada looga wada hadlo iyadoo wadajir la wadayahay Beetri tanaasulna in la sameeyo ayaa haboon. Abukar Shaakay oo jooga Sweden waxa uu leeyahay waxaan soo dhaweynayaa qodobadii lagu heshiiyay shirka Dhuusamareeb 3 maamulada ka maqan bilaa shuruud ayay u aqbalayaan cid uu hakinaysana ma leh sidaasi ayuuna ku hirgalayaa buu yiri. waa hagaa kuwaas waxa ay qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo aragtiyadooda ka soo dhiibanayay shirkii Dhuusamareeb. waa hagaag haatanna waxaa xalay weerar lagu qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada dawladda oo ku yaala magaalada Baardheer ee gobolka Gedo. weerarkan oo dhacay xilli habeen ayaan la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay. weerarka ayaa dhacay iyadoo Jubbaland ay ka arinsanaysay xaaladda amni ee gobolka Gedo oo uu shir gudoomiyay madaxweyne ku-xigeenka koobaad. haddaba sidaa ay wax u dhaceen iyo xaaladda gobolka Gedo ayaanu ka wareysanay madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Siyaad oo qadka telefoonka ee magaalada Kismaayo igu waramay. Baardheer nimanka shaadiinta ciidanka Soomaaliyeed oo difaaca kaga jiray magaalada duleedkeeda soo weerareen dagaal in kooban Sacuudi baa ka dhacay. saad la socotaan dagaalada habeenada dhacay waxa loogu yeeraa ku dhufo ka dhaqaaq ama arbush. maxaa khasaaraha oo soo gaaray labada dhinac oo aad inoo sheegi kartaa? maya Fortune waa wareysanay waa la xiriiray mas'uuliyiintii aaga joogtay ciidankiiba ma difaac bay ku jireen habeenimana waa ahayd waa isdifaaceen xugna waa ka hayeen marka waxba ma soo gaarin. qolyaha soo weeraray oo dib liskaga caabiyeen ilaa berita la ogaan doona khasaarahooda ayagana wuxuu noqon doonaa daalad. waayadan dambana hadda bishaan iyo bisha ka horeysayba waxaad moodaa ammaanka gobolkaas inuu faraha ka sii baxayo oo meelaha ayna gaari jirin shabaabka intii aan ugu howlgal inaan ka xoreyno oo 12 sano laga joogo inay gaareen sida Doolow iyo Beled Xaawo iyo Luuq iyo weerar ka fuliyeen. Garbaari nafteeda ay madaafiic habeenimo ku soo tuureen marka dhaqdhaqaaq xoog leh ay wadaan. dabcan fursado badan way heleen oo ay ka faa'iideysteen
kadib markii ciidamada Soomaaliyeed oo ka howlgalayay deegaankaas dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka kaashanayay ay dhex gashay arrin siyaasadeed oo ayaga ay noqdeen kuwa isku abaabulan marka fursadahaas ayaa jiray marka laakiin tan caawa Ilaahay waa naga badbaadiyay aad baan noogu xunnahay in waqti dheer oo difaaca gobolka ay xoreyntiisa la geliyay oo maanta weli ammaankiisa aad moodo inuu ka sii darayo maalmahan dambe dhowaan qarax ayaa ka dhacay Beledxaaw duleedkeedana waxaa lagu weeraray wafdi ka socday dowladda federaalka marka sida aad sheegaysayba amni darrida gobolka gacanta ay ka sii baxaysaa marka maxaa ugu wacan baad is leedahay farta walaashay waa caddahay saad la socota ciidama Muqdisho laga keenay baa deegaano nabad ahaa la geeyey ciidamadii deegaanka ka howlgali jirayna cadowga baa loo arkay waadna la socotaa bishii Maarso inuu dagaal Beledxaaw ku dhex maray labada ciidan oo labadaba ciidan Soomaaliyeed ah marka anaga Jubbaland mar amnigii aanu gacanta ku haynay haday ciidamada khalkhal geliyeen oo la afduubay ciidamada duleedka Beledxaaw waan ku xakameynay kuwa kalena ammaanka deegaanka sidii la rabay wax uguma qaban maxay la deegaankana ma garanayaan umana habaysnaba inay difaac iyo shabaabka la dagaalankiisa ay galaan maxay la shabaabka la dagaalanto waa inaad xogtina hesho una diyaarsan tahay marka sidaas ayaa shabaabka fursad u siisay inay deegaanadaas gaaraan oo doolowna ay galaan qof ku dilaan oo baabuur ka dhacaan dowladka Beledxaaw meena geliyaan oo wafuudi u dhigaan Beledxaaw qarax ka ridaan oo dadku dhinto luuq weeraraan oo niman ciidan oo Allah u naxariisto dhamaantooda ragii halgamayaasha ku dhintaan marka anaga maanta golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland waaba fariisanay oo maaragtay arrin xaaladda gobolkaas waxaan baaq baan jeedinay aan leenahay guddiga naga sareeyo amniga qaranka oo madaxweynuhu shirdoon ku yahay intooda badan hadda Dhuusamareeb joogo in arrintaas si degdeg ah xal looga gaaro si ammaanka gobolka loo hubiyo ciidanka Soomaaliyeed ee istul fadhiyo isfahansaneen xal looga gaaro marka baaq iyagana maanta sidaas ayaan ku soo jeedinayba dhanka kale shirka Dhuusamareeb ee maamulkiina uu ka baaqday ka qaybgalkiisa heshiis ku saabsan doorashada iyo nooca ay noqonayso ayaa ka soo baxay marka maxaad uga jawaabaysaan arrinkaas arrintaas degdeg bay nagu tahay caawa baan ogaanay qoraalada ka soo baxay marka xilligeeda ayaan ka jawaabi doonaa waa ka tashan doonaa waana ka jawaabi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo hadda baan arkaynay dukumentiga soo baxay kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka koobaad oo aan horey idinkugu sheegay Maxamuud Siyaad balse waa Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland oo qadka telefoonka igu waramayay weli halkaad naga dhageysanaysaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba subax wanaagsan mar kale haatana maamulka Puntland ayaa ka hadlaya warar sheegaya in burcadbadeed ay afduubatay markab la sheegay in maalmo uu taagnaa xeebaha maamulkaas markabka oo ka yimid magaalada Dubai kuna sii jeeday Xamar ayaa la sheegay in ay la soo dirsay cilad farsamo hadaba sida ay wax u jiraan ayaan ka wareystay injineer Maxamed Xaaji Saalax oo ah wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland markabkaasi wuxuu ahaa markab calanka Baanaba wata kana yimid wadankan Imaaraadka waxaana uu ku sii socday magaalada Muqdisho markabkaasi wuxuu ahaa cargo ahaa 2 ilaa 3 maalmood uu markaa ku noqonayay xeebta bareeda magaalo la yiraahdo u dhow ilaa markii dambe uu xeebta u soo dhawaaday 20 qof ayaa markabka saarnaa haddana waa laga degay markabka oo ciidankii xukuumaddu waa ka degtay laakiin markabka waxaad moodaa wixii halkaa ugu noqonayay oo markii dambe u soo dhawaaday inay ahayd cilad isaga haysatay waa cilad farsamo oo ah xagga mechanical marka taas ayaa sababtay goortii la ogaaday booliiskuna ay xaqiijiyeen markabku haddii la fiksigareeyo oo ay iyagu ku guulaystaan sida uu yahay buu xor ku yahay meeshii uu u sii socdayna loo ogolaanaya oo u sii wadanaya safarkiisa maxaa ka jira wararka sheegaya in burcadbadeed ay afduubatay markabka xaasha lillaah burcadbadeed waqtiga ugu dambeysay garan mayno waxaan ku leeyahay wararka lagu soo qoray baraha bulshada waa midaan sal iyo raad midna toona lahayn sida aad sheegtayba markabka waxa uu u raran yahay ganacsato waxaana uu ka yimid Dubai isagoo ku sii jeeday Xamar marka maxay tahay waxa aad ku haysataan wax kale ma aha shaki ka yimid dadka deegaanka degan oo arkay markabkan uu ku dul wareegayo 3 maalmood ama 3 maalmood ugu dambeysay
ayaa marka booliiska lagu foongareeyey deegaanka jooga localka ah ayuu markaasi wuxuu qaaday tallaabo ah bal markabka inuu hubiyo waxa uu yahay. hadda xaalkiisa maxaa lagu qiimeyn karaa markabka ma baaritaan ayaa socda mise waad soo afjarteen? baaritaanku waa dhammaaday, waa la baaray markabka xalay way ahayd door dambe adigu, laakiin baaritaankii waa soo afjarnay oo markabku wuxuu hadda meeshii u taagan yahay waa un cillad markaasi uu la soo xarooday sida ay noo sheegeen ciidamada, laakiin hal qof oo Soomaali ah ma saarna markabka. intuu halkaas taagan yahayna dabcan waxaa dusha naga saaran ammaankiisa inta markabkaasi laga samaynayo oo ay kusii wadanayaan safarkooda ilaa iyo Muqdisho ay ka tagaan. haddana wixii ka dambeeya markii la ogaaday markabku inuu yahay markab ugu raran magaalada Muqdisho, waxaa si wanaagsan oo sharaf leh looga soo degay oo loo ogolaaday inuu safarkiisa sii wato. waxaa jira warar sheegaya in ciidamada Puntland qoryo lagu ilaalinayay markabka ay kala degeen. arrintaasi maxaa ka jira? arrintaasi waa ay soo gaartay, waana garanaysaa iyo ciidan haddii mar meel loo diro operation ay fulinayaan waxa ka imaan karaayo waa la garan karaya. laakiin waxaan ka leeyahay dhinaca discipliinka xukuumadda dowladda Puntland ayaa ka mas'uul ah, waana la dhammaynayaa iyagaana lagala xisaabtamayaa falka wixii sameeyey. kaasi waxa uu ahaa injineer Maxamed Xaaji Saalax oo ah wasiirka kalluumeysiga ee kheyraadka badda Puntland oo qadka telefoonka igu waramayay. haatan cudurka safmarka ee coronavirus ayaa saameyn xun ku yeeshay guud ahaan caalamka, kaasi oo sababay dhimashada dad badan oo uu ku dhacay cudurka. haddaba dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa waxa ay ka mid yihiin dadka uu sida baani u saameeyay cudurka COVID-19 sida uu sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Haruun Macalin Xasan oo madax ka ah ururka Nonda oo u ololeeya dadka aan lixaadkooda dhamaystirnayn ayaa dhibaatooyinka ay wajahayaan amaba wajahaan dadkana uga waramay Cabdiraxmaan Cali Dhimbil. Covid-ka ama cudurkan waa doon weynahaba saameynaya oo dib weyn u gaar u geeyo dadka naafadaas saameyn gaar buu leeyahay. Warwareyntii waxyaalaha ma garanaysa cudurkani faafistiis yareynayo qofkan naafa dib baa u leedahay. Ilaa social distance baldi laakiin qofkan qof la caawinayo markastaba dad qaar markas waa la xambaara kii waa la riixa kiin doola u baa loo qabana marka social distance yani ama la kala fogaanayo qofkani possible ma aha ama qof dhagoola maska la xiranay marka afka uu xirnayo qofkani dhagool badana furuurahaad buu fiirinay sidii ma garanaysa communication uu holo marka taas nafteed ma garanaysa meel bay u leedahay. Taada kale waxa weey ciyaalka iskuulka aadayna oo naafada iskuula waa la xiray badana ciyaalkan badankooda yani iskuulka waa fursad u yahay ama xaafad u yahay halkaas baa dhaqaale ka helaya. haddii aynu bal si gaar ah u eegno tan ay saameynta gaarka ah ee ku yeelanayso kala fogaanshihii bulshada oo kale marka la kala fogaado iyo tallaabooyinkan kale ka hortaga kuwa xalal kale oo la sameeyaa ma jirtaa? marka yani tookal waxa way quarantine ama isolation dadka guriga waa inay ka baxeen baa la dhahay ma garanaysa xaafad qof hadduu xaafad joogo oo horaanba ma garanaysa dhaqaaladiisa iska liito oo xamaaligiisa iska saameyn baa u leedahay shaqadii wuu buwaynaa iyo adana qof hadda xabis ama court yani xaafad lagu xabiso quarantine darteed si cudurkan u faafin. taada kale waxa way programyaal oo khusuusan dowladda ugu tirgaleen oo dadkan oo muuqdana ma laha ama cuntooyin oo program oo khusuusan dadkan loogu tirgalay ma jirto oo sidii dadka ma garanaysa ugu caawin lahayn sidii ay dhibaatooyinkan kaga hortagaan. saameyn aad buu u leeyahay bulshada dadka naafada ama dadka curyaanka. waxaa jira tallaabooyin gaar ah oo loogu talagalay ka hortaga cudurka iyo wararka ku saabsan oo badanaa dawladdu sheegto. idinku waxaad tihiin hay'adaha ololeeya iyo shakhsiyaadka dadkaas badanaa arrimahooda u dhuun daloola. weli ma isku daydeen in fariimaha caafimaadku ay sidaa ay ahayd u gaadhaan oo tusaale ahaan dadka dhagaha naafa ka ah oo kale luuqadii tilmaanta loogu turjumo? Kenya dadka joogaan xamal dadka dhagoolaha dadku u ishaareen xamal had press conference way sameeyeen. kaasi waxa uu ahaa Haruun Macalin Xasan oo u waramayay Cabdiraxmaan Cali Dhimbil. dhageystayaal waxaan idinka raali gelinaynaa waraysiga oo aad moodo in quality-giisa uu wax yar liitay amaba si xun codku idin soo gaarayay. waa hagaag dhageystayaal weli halka aad naga dhageysanaysaan waa BBC.
waa hagaag dhegeystayaal ciyaarihi ayaa inoo soo socda balse haatan Nigeria ma ahan dal xiriir la leh ciyaarta loo yaqaano balletka balse Anthony Madu oo ah 11 sano jir ayaa adduunka tusay kartidiisa iyo jacaylka uu qabo qoobka ciyaarka kadib markii muuqaal uu roob ku ciyaarayo ciyaartaasi uu ku fiday magaalada Lagos ee dalka Nigeria wariyaha BBC-da Gigi Izundo ayaa hadaba la kulantay wiilkan yar warbixintan ayayna ka soo dirtay waxaana soo jeedinaysay Samira Jaamac. Anthony Mesoma Madu waa wiil da'yara oo barta qoobka ciyaarka naadirka ku ah dalka Nigeria. nolosha Anthony waa sidan 4 saacadood ee kamida maalin walba 2 sano ee la soo dhaafay. 5 and 6 and 7 and go. My favorite combination in ballet is ciyaarta aan aad uga helo waa qoobka ciyaarka loo yaqaano alkanet waxa ayna u kala baxdaan noocyo kala duwan waxaan waliba aad u sii jeclahay qaybta la yiraahdo aljanet. After 2 bath pins 11 jirkan waxa uu barashada qoobka ciyaarka bilaabay kadib markii waalidiintiisa ay u soo wareegeen magaalada ganacsiga ee Lagos. Why I love dancing is because sababta aan u jeclahay qoobka ciyaarka ayaa ah markaan yaraa ayaa waxaan jeclaa in aan daawado muuqaalada kartoonka halkaas ayaan igu dhiirigelisay markaan arko kartoonka oo ciyaaraya aad ayaan u farxi jiray waxaanan hooyaday u sheegay inaan rabo in aan noqdo qoobka ciyaare. hooyadii Ifema waxa ay bilowday baadigoobka iskuulka lagu barto qoobka ciyaarka si ay wiilkeeda ugu rumayso hamigiisa. Is not something that people ma aha wax ay dadku sidaa u sii garanayaan balse markii ay arkaan isagoo ciyaaraya waa ay ka helaan waxayna yiraahdaan muxuu wiilka yarkaa sameynaya. tan iyo markii aan ogaaday waxa uu yahay qoobka ciyaarkan aad baan u taageeray wiilkayga waan u ogolaaday. qaabka iyo habdhaqanka fasalka ciyaartan lagu barto aad ayay uga duwan tahay fasalada kale ee caadiga ah ee dalka Nigeria. badankood kuwa tababarka la siinayo ma ahan wiilal. Anthony waxa uu ka mid yahay 20 arday oo dhigatay iskuulka qoobka ciyaarka ee Lagos. waxaa toddobaadkii la soo dhaafay la baahiyay muuqaal Anthony oo ku ciyaaraya roob oo halkaasi uu ku soo bandhigayo xirfadiisa. hooyadii la yaab ayay ku noqotay falcelintii laga bixiyay muuqaalkaasi. I can't believe this. waan aamini waayay ilaa iyo haatan waxaan u malaynayaa inaan riyoonayo. walaashii aad ay ugu faraxsan tahay marka qaar xitaa iyada ayaa tusisaa Anthony oo ciyaaraya. maalmo kadib Anthony waxaa loo soo bandhigay waxbarasho lacag la'aan ah oo lagu baranayo qoobka ciyaarka macad ku yaalan magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka. xanuunka COVID-19 ayaa hor istaagay bixitaankii Anthony ee Mareykanka balse macadka Mareykanka ee ciyaarta lagu barto ayaa isaga u diyaariyay fasalo kor u qaadaya xirfadiisa. The parting word is hadalka ugu dambeeyo ee aan doonayo inay dadka ogaadaan ayaa ah in qoobka ciyaarkan gaarka ah uu dalka Nigeria ku badan karo. qof kasta oo dalka Nigeria ku sugan oo doonaya in uu sameeyo ciyaartan ayaan leeyahay. Samira Cabdilaahi Jaamac ayay ahayd taasi oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. haatanna sportskii ama ciyaarihii tababaraha cusub ee kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inuu aad u danaynayo inuu la soo wareego ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Liverpool ee Jorginho Wijnaldum 29 jirkan u dhashay dalka Netherlands ayay Jasiiradda Express ku soo warantay in laga yaabo inuu u wareego kooxdaasi haddii laga heshiyo. dhanka kale kooxda Manchester United ayaa hoos u dhigtay damaceeda ahaa inay amaah kula soo wareegto ciyaaryahanka reer Juventus ee Douglas Costa waxaana haatan dadaalka arintaasi uga jirtay ay u wareejisay sidii ay ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka reer Wales ee David Brooks. idaacadeeni subaxnimona waa inaga intaa waxayna balanaha saacadu markay soo gaarto 2 duhurnimo hadduu Alla awood leh uu ogolaado.